guba bilowgiisii hore wuxuu baay qabay barashookeed yuu kaga bogtee. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن داودياش أنا جعلنا هاي وكسر دوادا برنامج جارة وانكو اجينو علمي باريس اي كسو بندقين لبا أرضي وقايبك أرض ذاك قلن جبسي جامعة إنديان أوشيا يونيفرسيتي مقالة مقدشو حارونتا جامعة إنديان أوشيا يونيفرسيتي اي كل هاي مقالة مقدشو اي حارونتا دالكا لبادان أرضي وقايبك ardayda ka qalin jibisay jaamacadda Indian Ocean University ee magaalada Muqdisho ayaa waxay ku soo bandhigeen xarunta jaamacadda Indian Ocean University ee magaalada Muqdisho cilmi baaris ay kaga hadlayeen awoodaha xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliyeed. intii munaasabadu ay socotay ayaa ardada waxa ay soo bandhigeen daraasadii ay ku sameeyeen awoodaha uu leeyahay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliyeed. munaasabadan oo goobjoog ay u ahaayeen mas'uuliyiin uu qayb ka yahay gudoomiyaha jaamacadda Indian Ocean University ee magaalada Muqdisho Samawade Maxamed Cali Daahir, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee jaamacadda Indian Ocean University ee magaalada Muqdisho Professor Cabduqaadir Maxamed Maxamuud Cutush, madaxa shaqaalaha Maxamed Aadan iyo mas'uuliyiin kale oo lagu casuumay ayaa waxaa goobjoog ahaa garyaqaano si weyn looga yaqaano dhulka Soomaalidu ay degto. ugu horeyntiina labada arday ayaa cilmi baaristooda ku bilaabay. jaamacadda injineer Samawade Maxamed Cali Daahir, gudoomiye ku-xigeenka Professor Cabduqaadir Maxamed Maxamuud Cutush, maamulka shaqaalaha professorada ardayda jaamacadda Badweynta Hindiya, marti sharafta iyo miidiyaha dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. سلام كدب أنيقو عبد الرحمن عبد الله علمي كان من أرضيدا كقلن جبسي جامعة بدوين تهندية دفعة صدنية سدحات كلية مامل كأي مارينتا مانتا أو تاريخ تهاي تضوّد بيش الجنايو لبكون تبني اللي وحن هرتي نأتاجنا هاي إن ندين صوبا ديجو علمي بارس أنقص سمايني حفيزك حير لاليها جود قرنكا intaan ku guda jirnay cilmi baarista waxaan naga caawiyay kormeeraheena gaarka Professor Maxamed Rashiid Sheekh Cabdiraxmaan Moomin. cilmi baaristeena waxay diiradda saaraysaa awoodaha xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. cilmi baaristeena waxay si gaar ah u qusaysaa xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, wasaaradda cadaaladda iyo guddiga cadaaladda ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. cilmi baaristan waxaa nagu xiiso geliyay markaan aragnay faham darrida ka jirto awoodaha xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka. gundhig xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka waa qayb ka mid ah garsoorka. xeer ilaalintu wuxuu u hoggaansan yahay sharciga oo keliya, loomana isticmaali karo qaab siyaasadeed. xarunta xeer ilaaliyaha guud ee qaranka waa caasimadda Muqdisho. awoodda xeer ilaaliyaha guud ee qaranka waxay ku fidsan tahay dalka oo dhan. hadda waxaa gobollada dalka ka howlgala 25 xeer ilaaliye. haddii aan qeexo mas'uuliyadaha xeer ilaaliyaha guud ee qaranka waxaa ka mid ah dhowrista sharciga, difaaca xuquuqda dawladda, difaaca hay-adaha dawladda, difaaca daayarta iyo difaaca naafada. sidaas darteed xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka wuxuu ogaa dacwad ciqaabeedka, wuxuuna diyaariyaa dacwooyinka la xiriira faldambiyeedyada, wuxuuna ka qayb galaa dhageysiga dacwadaha. xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka markii ay jirto dan guud wuxuu dhaqaajiyaa dacwadaha madaniga ah danta guud awgeed. sida uu sharcigu tilmaamayo wuxuu xaq u leeyahay in uu racfaan ka qaato dacwadaha madaniga ah iyo kuwa ciqaabta.
xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka wuxuu ku amri karaa booliska dabagalka iyo ka hortagga dambiyada. xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka wuxuu si weyn u ilaaliyaa xaaladaha xabsiyada iyo dhismooyinka. Professorada ardayda jaamacadda Badweynta Hindiya, marti sharafta iyo meediyaha, waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu. Salaan kadib, anigoo ah Maxamed Xasan Aadan, kana mid ah ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Badweynta Hindiya dufcadda 33aad kulliyadda maamulka iyo maareynta. maanta ay taariikhdu tahay 7 Janaayo 2016 waxaan hortiina u taaganahay inaan idiin soo bandhigo cilmi baaris aynu ku sameynay awoodda xafiiska xeeladaha guud ee qaranka. habka xog ururinteenu waa hab su'aalo weydiin. habkan waxaan u dooranay si aan u helno jawaab sax ah oo ku habboon cilmi baaristeena. xog ururinteena waxaan ka sameynay gobolka Banaadir. dadka aan xog wareysiga la yeelanay intii aan ku guda jirnay cilmi baaristeena waxay isugu jireen sharci yaqaano, dad maxkamadaha ka shaqeeya, dad xafiiska xeeladaha ka shaqeeya iyo aqoon-yahano. su'aalaha xog ururinteena waxay ahaayeen sidan: xafiiska xeeladaha guud door ma ku leeyahay dib u habeynta dacwo oogayaasha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa garsoorka? 94.1% waxay ku jawaabeen door uu ku leeyahay dib u habeynta dacwo oogayaasha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Number 2, xafiiska xeeladaha guud ee qaranka mas'uuliyadiisu ma tahay soo oogidda faldambiyeed isagoo ilaalinaya danta guud? 86% waxay ku jawaabeen mas'uuliyadiisu way tahay soo oogidda faldambiyeedyada isagoo ilaalinaya danta guud. halka ay 20.4% ay ku jawaabeen maya. Number 3, xafiiska xeeladaha guud ee qaranka ma ku jirtaa mas'uuliyadiisa siinta talooyin sharci ah dhankiisa xagga xukuumadda? 94% waxay ku jawaabeen xafiiska xeeladaha guud ee qaranka way ku jirtaa mas'uuliyadiisu siinta talooyin dhanka sharciga ah ee xukuumadda. su'aalahan waxay muhiim u ahaayeen xog ururinteena. waxaan ku soo ogaanay cilmi baaristeena inay jiraan 25 isugu jira xeer ilaaliyayaal iyo xeer ilaaliye ku-xigeenno oo ka howlgala ee gobollada dalka. waxaan kaloo ku soo ogaanay cilmi baaristeena in xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka uu ku shaqeeyo xeerka nidaamka garsoorka ee la sameeyay Juun 1962. haddii aan soo koobo xog ururinteena, su'aalaha cilmi baaristeena waxay ahaayeen sidan: xafiiska xeeladaha guud door ma ku leeyahay dib u habeynta dacwo oogayaasha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa garsoorka? Number 2, xafiiska xeeladaha guud ee qaranka mas'uuliyadiisu ma tahay soo oogidda faldambiyeed isagoo ilaalinaya danta guud? Number 3, xafiiska xeeladaha guud ee qaranka ma ku jirtaa mas'uuliyadiisu siinta talooyin dhanka sharciga xagga xukuumadda? habka xog ururintana waxay ahaayeen hab su'aalo weydiin, kala soo jeedin, in la sameeyo wacyigelin ku saabsan qaabka ugu shaqeeyo iyo mas'uuliyadda xafiiska xeeladaha ee qaranka, in wax laga bedelo qaabka ugu dhisan yahay mushaaraadka
xafiiska xiriiryaha guud ee qaranka in ay dabagal ku sameeyaan xafiiska xiriiryaha guud ee qaranka dadka iska xiran iyaga oo maxkamad la geeyo. mahadnaq waxaa mahad iska leh allah subxaanahu wa tacaala oo inoo sahlay inaan si wanaagsan kusoo dhammaysano cilmi baaristeena. intaa kadib waxaan u mahad celinayaa kormeeraheenna kaasoo si joogto ah oo aan hagan lahayn noo siiyey taageero buuxda oo ku aadan cilmi baaristeena. waxaan u mahad celinayaa maamulka shaqaalaha jaamacadda badweynta hindiya. sidoo kale waxaan u mahad ballaaran u jeedinayaa waalidayntaydii ugu soo barbaariyey tubta toosan. mas-uuliyiin ka tirsan jaamacadda Indian Ocean University ee magaalada Muqdisho ayaa dhankooda ka hadlay cilmi baarista ay soo bandhigeen labadan arday ee qaybta ka ah ardada wax ka barata jaamacadda Indian Ocean University ee magaalada Muqdisho. ardada iyo professorada jaamacadda badweynta India marti sharafka iyo media inta waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan rabaa inaan meeshaan uga mahad celiyo labada arday ee soo diyaarisay cilmi baaris ku aadan xafiiska xeeladaha. runtii xeeladaha waa xafiis gooni ka ah xeerbeegtiga kale. waxaana aad noogu barbaarin doona insha allah haddii ilaa ilaado daraasadda kadib wixii aan sharci yaqaano jooga xildhibaano keliya maa waa dad wada sharci yaqaana insha allah. maxkamaddaas xafiiska xelaaliha wuxuu ka shaqeeyaa wuxuu u dacwoodaa dowladda isagoo dacwo ku ooda isla dowlad kale ama kambani ama shaksi markaa dhibaato u geystay dowladda ma shacabka Soomaaliyeed. waxaa loo ogolaadaa qofkaas kale ama dowladdaas ama kambanigaas qareeno marka waxay soo yimaado waa xafiiska xeelaalintii oo meesha jooga iyo qareen uu wato qof ama dowlad ama kambani. saasay dacwadaas u dhacdaa. mar labaad ku soo dhawaada jaamacadda badweynta India. السلام عليكم ورحمة الله. بروفيسور عبد القادر محمود محمد عتش ماموركا شقالها بروفيسورada iyo ardada jaamacadda badweynta India marti sharafta iyo media waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaam kadib marka hore waxaan u mahad celinayaa Allah subxaanahu wa tacaala oo halkan inoo kulmiyey inaynu ka hadalno aayaheena iyo waxyaabaha u baahan bulshada Soomaaliyeed iyo dowladaba in loo iftiimiyo si looga hortago waxyaabo ummadda Soomaaliyeed waxyeelanaya. marka xigta waxaan u mahad celinayaa Maxamed Xasan Aadan iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cilmi oo ah labada arday cilmi baarista sameysay. run ahaantiina cilmi baaris loo baahnaa soo bandhigay. dadka Soomaaliyeed ma aaminsana ama maba ku baraarugsana in laga hadli karo hay-adaha dowladda iyo waxyaabaha ay qabtaan iyo meelaha looga baahan yahay in waxyaabo ku habboon loogu hadlo. taa waa uga mahad celinayaa. awoodda xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka way ballaaran tahay. waxaa ugu weyn ama ka mid ah 4 qayb: ilaalinta ama in hay-adaha dowladda dhowrista sharciga iyo dastuurka inaan lagu xadgudbin, qofkii ku xadgudbana inuu dambi ku soo oogo ama uu la yimaado sharciga. waxaa kaloo ka mid ah in la ilaaliyo ama inuu ilaaliyo ama uu u doodo danyarta iyo naafada. أنا أقول دراني إن خطبة وحين أقول جوجو رك شرعي قانا
iyagaa noo faaqidi doona laakiin waxaan jeclaan lahaa laba arrin ayaa iga muuqata cilmi baaristan iyo xafiiska xeer ilaaliyaha guudba in laga gacan bidixeeyo oo aan si fiican sidii loo rabay aan loo ilaalin. xafiiska xeer ilaalinta shaqadiisana ka mid ah waa ilaalinta ama u doodista danyarta iyo naafada. wax badan ayaan aragnaa dad badan oo bulshada Soomaaliyeed naafa ah iyo danyar oo Soomaali ah muwaadin Soomaaliyeed ah oo dalkii joogo sidaa ay tahayna xuquuqahooda ay maqan yihiin. marka waxaan rajeynayaa insha Allah xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka waxyaabaha ugu muhiimsan inay tahay ilaalinta ama u doodista danyarta iyo naafada. labada arrinna in insha Allah haddii Ilaahay kala noqdo focuska la saaran rajeynaa waa maasantiin. والسلام عليكم. حر إلالين مركز ولا حر وحاي ممد قرتي أو شرعي أو دكسل ذلك معناها حر إلالينتو وعدة إلاليسة شرعية إلاليها شرعية وهي حر إلاليون شرعية مركز أقول هاي ذلك شروع بأو دكسل شروع ذلك أو دكسل محوها خوف كي جبية أو جفاء أيوه محوها حر إلاليوه كهول قرار معناها إلالينتا حركة واي حرالي مركب قليا حركة بوركا فورينكا محوها يشروع كذا بدل هشيشية وحيا وح الله وحي اللي وقفوا أي شروع أي حرالي تبع لسان حرالي محول الدنبية ده أيوة أما الدنبية الدنب دعي أيوة بارا أما متهوري ومركا دعية أما متهوري ودعي marka dambi marka la yiraahdo dambi waa nooc bari xiraan dambi wuxuu ku yimaada laba nooc ku yimaada wuxuu ku yimaada ficil waxa lagu yiri waxa dilay waxa lagu yiri waxa kufsan waxa lagu yiri waxa habiini waad samaysay Soomaa ficil ku samaysay wixii aad yiri sharcigu ku yiri ha sameeyay ayaa samaysay xiraalihu waa ku qabanaya sharciga ku qabanaya booliiska ku qabanaya xiraalinta faraha lagu gelinaya waxa lagu yiri muxuu ahaayay dadka danyarta ilmaha ama qof dhaawac oo grava ah وفيدي جرجال أيام وين، أضو قاري ولا تأياد نوع ماشي تومرتي والقف قاعد بالوين واتكلم قاعد حد فكر تسميه ومشي لا سميه ومشي ولا ديسكورس واحد يدي وتفنوا ويني جرجال كله لازم مركا دم بيقول حكي ماذا ربدا وجي دم بيحل إلى هذا ليد القانون في معناها شيء شرعي وكسر هرتي يا وحل إلى هذا نوعها دم مركا حراليهم waxaa laga rabaa inuu yahaado qof hufan inuu ahaado qof dadka u dhaxeeya sababtu waxay tahay dadka eedeysanayaasha oo nooc walba oo eeda ayaa xeeryaaliha muxuu ahaayay la hor keenaa oo baara nooc walba dad waala dad fiyo kufsi muxuu ahaayay dil muxuu ahaayay gubi dad la gubay soo wax fadama marka waxaas oo qofku waxaa rabaa inuu la yimaado attention xoog leh oo wax walba u dhugto si durugsan oo qotadheer ugu fiiriyo waxaan marka waxa la isku haystaa oo qofka xeeryaalihu wuxuu soo cadeynaya sida baniikolka x-ray inuu soo cadeyso qofkaani horta dambi ma dhacay marka ugu horeysa alis wasalan dambi ma dhacay ama ficil aan hal ugu galay dambi ma dhacay ha hadduu dambigii dhacay waa qodob waxa markaas eegaya qofkaani ma yahay qofkii falka sameeyey shakhsigaani haddii uu yahay qofkii shakhsiga sameeyey waxa laga rabaa inuu soo cadeeyo xeeryaalihu hadduusan eed lahayn waxaa laga rabaa inuu yiraahdo muxuu ahaayay kalima halkii eedda lahaa waxaan rabaa dadka u imaanaya xeeryaalihu inuu noqdo yani partial dhexdhexaad marka aad dhegeysanayso oo kan eed la eedeynayo kan kalena oo eedda ka dusha ka saarahayo waxaan rabaa inuu si u dhug yeesho oo uunan u kala helin marka qosolku inuu noqona haddaad hal dhinac yes saas ma yahay su-aal wujicisa xataa waxay noqonaysaa muxuu waxay noqonaysaa adigii dhinaca noqonaysaa way eedoobaysaa qof gartii oo isaga iyo xafiiskiisaba ma aha xubin madax bannaan oo ka madax bannaan hay-adaha dowladda wuxuu ka mid yahay garsoorka xeeryaalaha guudna wuxuu xubin ka yahay guddigaas maamulka iyo jihayntiisana waxaa meel mariyey marka laga soo tago dastuurka dalka guddigaas ayaa u sameynaya qorshihiisa shaqada inta ku xigeen xeerlaalin uu qaadanaayo mushaharkooda sida ay noqonayaan shaqadooda sida ay noqonayaan wixii laga soo tago shuruucda dalka guddigaas askari jihayntiisa mar kale waxaan rabaa inaan caddeeyo xafiiska xeerlaalinta inuusan ahayn xafiis madax bannaan waa xafiis dowladeed ka mid ah kaabayaasha dowladda
kuna dhex jira garsoorka dalka. su-aashii ahayd ma leeyahay maadaama dalkii uu nidaam federaal aaday dowlad goboleedyadii u aaday maxkamad kastaa lagama maarmaan maya inuu xeerlaaliyo joogo qaanuunkaa ku jihayay sidaas meeshay maxkamada ka dhismato waa inuu joogaa qof xilkii xeerlaalinta qaada ama ku-xigeen ahaan ha ku qaado ama ha ku qaado isagoo xeerlaaliyo guuda. dowlad goboleedyada waxay samaysanayaan xeerlaaliyo guud laakiin xilkiisu yahay xil dowlad goboleed. xeerlaaliyaha guuda qarankana wuxuu noqonayaa xilkiisa xil dowladda federaalka. wada shaqayn sida nidaamka dawliga u wada shaqaynayaan oo dowladdii federaalka iyo dowladdii heerka gobol ay u wada shaqaynayeen sidaasoo kale uu xiriir wada shaqayn u dhex mari karaa xeerlaaliyaha guud ee dowlad goboleedka iyo xeerlaaliyaha guud ee dowladda federaalka. tii ahayd maxaa loo waayay maxkamadii dastuuriga ahayd lagu jiraa maxkamadii dastuuriga. dastuurkaa tilmaamaayo wuxuu leeyahay ilaa ay inta laga dhisaayo maxkamadda dastuuriga waxaa xilkeeda sii wadaysa maxkamadda sare. xeer ilaalinta hawsheeda waa badanta. wuxuu geli karaa case oo penal ah, wuxuu geli karaa case civil ah oo dacwo madani ah. caseska madaniga ah oo xeer ilaalintu ay ka qaybgelayso 10 xaba kama badno, 10 arrimood kama badno. markaasna duruufo gaar ahaa jiraan, laakiin hawsha weyn wuxuu leeyahay xeer ilaalintu waxay leedahay arrinta markii ay tahay arrin dembi ku saabsan. hawshiisina waxaa weeye dadka dembiga galay inuu dembiga ku soo oogo. isagoo hawl kale ma laha, waa la isku hayaa ma cadda xeer ilaalintu ma wasaaradda arrimaha garsoorka ay ka tirsan tahay mise garsoorka guud ahaan ay ka tirsan tahay. waa arrin dood ka taagan tahay waay, laakiin sharcigeena wuxuu qabaa in xeer ilaalintu ay ka tirsan tahay garsoorka. marka meeshii laga dhigto labadaba waa anfacaysaa. arrimaha ku saabsan hawsha ma itaalkooda uusan dhammayn marka ay daafacayso kaasahaas kaasa shabiila u badan yahay, kaasa madani u badan yahay. arrinta xataa madani hadday tahay 10kaas qodob 10kaas case oo anaga aan sheegaynay oo xeer ilaalintu inay kasoo qayb gasho maxkamadda ay tahay. maxaa jira haddii sharcigu uu qoraayo dacwadaas xeer ilaalinta inay kasoo qayb gasho oon xeer ilaalinta laga soo qayb gelin oo garsooraha uu iska dhegatiro, arrintaasoo dhanba wax kama jiraan ay noqonaysaa. ugu dambeyntii ayaa kasoo qaybgalayaasha waxa ay weydiiyeen su-aalo ku aadan cilmi baarista ay soo bandhigeen labadan arday ee qaybta ka ah ardada wax ka barata jaamacadda Indian Ocean University ee magaalada Muqdisho. waxaan su'aalayaa ardada iyo mutaqaaniinta yaqaanada horta maxkamadan oo mataqaana qaanuunka ilaalinaysa waa garanto dadka ilaalinaysa shacabka iyo qaanuunada iyo wixii la xarimo dowladdaas xaaraana ayay ilaalinaysaa wax la qabto dalka lagu ilaalinayo wixii ilaalinayay fulinta wixii ilaalinayay sida maxkamadda dastuuriga oo kale maxaa loo waayay ardadu ma su'aaleen garyaqaanada hadda meesha fadhiya xaggay aada maxkamadii ilaalin ilaa dadku waa wada dembiilayaal ilaa uu garan laga soo qabtay ahayd suu maahay. marka waxaa weye xaggee maxkamadii fulinta ilaalinaysay laga tuuray ma waxaa la rabaa in xakaha la goosto oo wixii la raba la qabto oo wixii la rabin la qabto oo lagu dhaqmo waxaan meesha oolin dadku waa la khaldaan waxaa lala abuuray khaldan awlan wixii la qabanaya maasantii kulli شرفك لو هميتين يا سؤال أردنا سوى سمايسين دراسات يوم بروفيسورينتا سؤال شيء ما يتهاي حير الالية قرنك مقصيصا عرورتا تردريسن دربيدو كاستماعين دروغدا معناها كوليج وقوها يدو إسلامي أيام كشرة لكن مال المها القدر يلو معناها كوني حكومة إلى ذا ميجي تساوي ملايين واجب أيا كسارة وقصبني هاي وهوشي يونيس أي كمتها المها ضيعانو دربيد جيفا إنه أروريو أو حرايو أو هدين من الحرايك لو عندي مركز كوش قدر الجود بيو وهو واجب كسارة ومعنى شرعي أيا شيء هي المها يرفع يواجبات كسارة حرنا عليها
laakiin nasiib daro waagi hore waxaa jiri jirtay meel ilmaha lagu xanaanayo la foolo kale kuliyadda waxbarashada la foole baydhabo kale bonkaay waqooyi galbeed meel baa ka jirtay laakiin hadda oo dawladda ayaa samay jirtay cunugii micnaha ilmaha aan waalidka lahayn ya wheelchair micnaha ilmaha aan wax waalidaba lahayn oo kula sida ay lagaalintiga ah ilmaha waalidkooda ay dayarta yihiin ilmaha soo lumay ismaarimeelka soo lumay waxaas oo diirarka dayacan ama qoysaska dayarka ah meel baa lagu xarayn jiray oo wax ku baran jireen benina waxay noqon jireen hoggaanka hadda dawladda dad badan oo ka mid yihiin waxay ahaayeen muxuu ahaay kula jooga dhigan jireen kule hadda intaan ka xusuusto inkii loo murmay ayaama dhexe ra-iisul wasaaraha ahaa farmaajo wasiirkii la qarxin jiray arrimaha gudaha taasaan kulligu kula shaalay ahayd waxaa jiray kolejo kale oo ciidamadu ay lahaayeen oo militaarka haddii cunuga aabihii dhinto lagu xanaanayn jiray waxaa jiri jirtay kolej kale oo ilmuhu hadduu aabahood dhinto booliiska ah kolejo firaara hadda waa jirtaa qaybta gabdhaha turkiga sameeyey booliiska marka ilmaha Soomaaliyeed xeeralta ka saaran tahay waajib annagana way naga wada saaran tahay kulligeed waayahay عمرنا شرع الضبطان إنه سيجري برجوع واحد أنا سكاب فورماليتي سكاب فورم لكن ما في شرع وجيب جو أنا أحكيك ما سيفي عن إذا قبل أن يرى تايد وعد حافظة سيفي عن فيش نوصينا يا أنا تصمه عن كلام لا يا سومالي ده كوسا لا يا يا أوبا من شرع كتمتان على ما غير سبب كلامك لا تو دعوة ربنا كويسة معناه إنه ما تحي ما دام محكمته يكويا لا هير دمو هير جوجل هير جوجلات إلا هير تعب شرط مية إن محكمة قلبا وهير دليل سؤال ما بحثنا هير دليل يفتح كيسو حقوق وسط حديث بدرية محكمة السلم مدفوعينها رئيس الوزراء لا بس ما سنتي دعوة والبا وحسوء أوجا هير العالية سيدا شرع ويقصد سيدا شرع وضبط بدك كلام حفيزك هير العالية هو وكم مدح بناية هاي وهي هاد مدح بنا أبوده هذا يشرع شروع ذلك وبالله التوفيق. قلت لها برنامج كان عمارك تحكي ويدين لهم أنا قوم استاجين إن صاحبتي ويديو السؤال وحنا استاجين إن السؤال ويديو ما تشرب كنقص وقت بشيء ماشى ما تأخذت ولا حاجة ما تحرر عليها وصار مرتقالي هدي حرر عليها وجود قرنك أو دم بمقالة يا كسر أولو يا أسرع دم بياس إن شاء الله تعالى وحن قعد سنيا إن البراريداس وحنا جينا هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تانك على واحد سؤال يا أفضل واحد سؤال يا الياس المجهد أبدي أسوق بسر إنسان يا لباتن حرلالية وسط مالان حرلالية هجود حرلالية أنا أوصل كم مرمين بوليس si hufan ula shaqeeya oo awoodihiisa maaragtaa dhammaystira ma ka jiraan gobollada isku xir ciidan booliis oo kiisaska iyo dambiyada ka dhacaya si qurux badan u soo gudbiya ma jiraan tan kale waxa weeye mar haddii aad daraasaad ka samaynayseen awoodda xeerlaaliyaha guud ee qaranka habsami u socodka howlaha xafiiskiisa wax ma ka weydiiseen haddiise aad weydiiseen ma heli kartaan mase idin sheegay xabsiga dhexe dadka ku xiran inta ay tiradoodu lan tahay asalaamu calaykum gobolada koonfureed iyo gobolada dhexe intay u badan yihiin iyo magaalada muqdisho waxaana waa jiraan oo boolis soo qabanaa waa jiraan oo keen oo mataqaana oo fuliya awoodahan mataqaana xeryaaliyaha waa inta mataqaana wadda oo aan ogaanay oo tusaalahaan muqdisho kale ama bay boqol kale laakiin inta kale waxaan ku ogaanay inay yihiin kuwa mataqaana madax bannaan weey hadda aan la gaarin wana maasantiin waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo TV-ga Som TV qaabka quruxda badan oo ay hawsha noola qabteen waxaan waqti xaadirkan ku sugannahay hoyga weyn ama hoolka weyn ama campuska weyn ee jaamacadda Badweynta Hindiya waxaana soo gabagabeynay program qaatay 1 saac iyo dhowr daqiiqo oo aan ku marti qaadnay madax iyo marti sharaf iyo arday kale markaas
qaabilsanaa topic aad xasaasin u ahaa waxyaabaha laga hadlayay waxay ahaayeen qaabka uu shaqeeyo xeer ilaaliyaha xafiiskiisa iyo waxyaabo kale oo la xiriira dhinaca sharciga iyo wax noocaas oo kaleeta ah marka la rabaa inaan Som TV ugu mahad celiyo haddaan title-kayga dib u sheegana waxaan ka mid ahay shaqaalaha jaamacadda Badweynta Hindiya waxaan ka howlgalaa xafiiska waxbarashada ama akademiga magaciigana waa Ciise Xaaji Maxamed waan idinkaga mahad celinayaa dhammaantiin qaabka quruxda badan ee hawsha noola qabateen jaamacadda Indian Ocean University ayaa qayb ka ah jaamacadaha waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho ee xarunta dalka waxa ayna kaga soocan tahay jaamacadaha kale ardada qaybta ka ah jaamacadda Indian Ocean University ayaa toddobaad walba cilmi baaris ay sameeyeen waxa ay ku soo bandhigaan xarunta jaamacadaasi ay ku leedahay magaalada Muqdisho guud ahaan inta ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii gaarka ah ee aan ku eegaynay cilmi baarista ay sameeyeen laba arday oo qayb ka ardada wax ka barata jaamacadda Indian Ocean University ee magaalada Muqdisho inta barnaamij noocan oo kala aan ku kulmi doono waa Xasan Kaahiye Naqiib Axmed Naqiib iyo Cabduqaadir Carab oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo amaan Allah